السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا داوي كان جاب هلك يلا دقا مالي وهذا إذا ما دي كرم يا مي وهذا إذا كرم دي كرم أوكي أوكي وراد بني السلام يا صوت دافع هارد وكلا دقا تعدي ما تشيرو الحمد لله والسلامي قال الحر والسلامي أوكي والله صوت أنا روب بدأ هي عمرض ودقنت هاي ما هو السلام يا عارف أنا نير عاد ما جربت ما قلت شراي عارف أنا نير كور رمو kaa salaamay boqolkiiba boqol waan kaa salaamay maaha weligeeda kor isu qaaday ahey waxaan rabaa inaan yar ka hadlo doorashadan ururka dhalinyarada OSU ee ka dhacaya weekend nagu soo aadan haddii la yidhaahdo ama weekendiga nagu soo aadan deegaanka shaba waddankeena cod waa jiraa soomaa roob aad igu daayay aad buu igu daayaa roob unkad iyo hanqad waa la maqlaa sooma haddii la maqlo waxaan rabaa marka inaan xoogaa war hadha haasoo qora maqal ma jira hadha inaan arag jiro aan ogahay isaga maqal ma jira okay 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 maqal waa jira soo salaan sharaf dhammaantiin waxaan marka rabaa xakan maxamed waa sax walaale aad baan ii salaamayaa horta saddex nin oo dhalinyaro ah oo mas-uuliyiina oo dhammaystiran baa yaa insha allah aan rajeynayna inay tartamaan tartankaasi waa tartan ururka dhalinyarada dhexdooda waana tartan waxqabad weeyaan qofna ku dhaliili mayno waa dhalinyaro dhammaystiran xaqiiqatan intoodaba waxaan rajeynayaa inuu mid waliba ka kale la shaqayn doono haddii la yidhaahdo inuu nin waliba ka kale la shaqayn doono waqtiga ay guusha soo dhammaatay innaga dhexdeena aynu iska soo kala dhex dhammaano waana guul kale markii ay tartamaan dad kale oo maaragtay dad eelo oo wada shaqeeyey oo wax wada cunay oo isa wada shaqeey war ma jira horta roob ma maqashaan horta baal dhagaxyaalaha ay u daayeen roob waad maqashaan sooma aniga waad maqashaan maaltu jira nagaayatu jira nagay badhaadha okay waxaan laakiin uga digayaa dhalinyarada macquulka ah ee OSU ama jabhadda inta badan alaabteeda ayada u soo shaqaysay isku dirka inta uu hawshan ay socoto in aan la isugu dhiibin iyaga inay is ixtiraamaan inay ogaadaan inay yihiin kuwii shalay soo wada shaqaynayay inay cadow badan leeyihiin inay ogaadaan oo dhammaystiran inay ogaadaan meesha loo socdo inay tahay meesha saxda aydan u soconay dib u noqoshana inayna jirin xoogaan marka aynu taxadir fara badan samayno wax ka sheegidda dhallinyaradeenna ina gacan dhaaftay inay nasisa rabta inay nala shaqayso inoo shaqayso si volunteer inoogu shaqaysa la rabta inaynu midna cambaarayno inayna dhicin aynu ku dadaallo waxyaaba fara badan baa laga yaabaa in qofba qof kale loo sheego mar hadduu wax tartan meesha yimaado in qofba qof kale wax loo sheega laga yaabaa waxaas inaynu maqalana ma aha inaynu dheg u dhignana midna ma aha
inaan maqalana maaha inaan dhow dhignana maaha haddii la yidhaahdo dhalinyaradaas sida volunteerka inay u shaqayso damacsan una soo shaqaysay kan ma barbaana naga barbaana waa dhibi waa Ibrahim barbaan okay inaynu la shaqayno midkoodii soo guulaystay inuu Kenya inaynu aragno inaynu maaragtay haddii la yidhaahdo aynaan xaaladda yar ee ama tartanku jiro ama socdaalka tartanku jiro inaynaan inagu layna soo kala dhex gelin waan rajaynayaa dhalinyarada goobta doorashada joogta inay kolban nin waliba garaadkiisa kuusiyo ay u arkaan inuu ururka dhalinyarada inuu hagi karo ama wadi karo inay codkooda siiyaan anu waxaan taageersanahay mujaahid waan rajaynaya inuu soo bixi doono haddii la yidhaahdo aad weliba inuu soo bixi doono aan rajaynayo laakiin dhalinyarada in loo kala sheekeeyo mar hadduu tartan yimaado waan ognahay xifaaltan baa imanaya dhalinyaradii maaragtay kale qaarba musharaxiin bay taageersan yihiin marka waxaa laga yaabaa in afkaara iyo odhaho kala duwan oo qaldan in loo soo kala gudbiyo arrintaas aynu ka taxadarno kana digtoonaano haddii la yidhaahdo aynu ka taxadarno kana digtoonaano insha allahu xakim maxamed daad waa waqti la gaadhay annagu khibrad baan taageeraynaa haddii halganka da lagaga weynaado ama xil da laga weynaadana adeeradeen baad u sheegaysaa haddii la yidhaahdo adeeradeen baad u sheegaysaa oo odhanaysaa ka leexda baalka waad ka weynaateen anu taasaan qabaa waqtigii halganka lagu soo biiray dhalinyaraa la ahaa waa la soo shaqeeyey waa lagu soo dadaalo lagu soo rafaaday 25 sano wiilkii halganka jabadda waday hawsheeda waday haddaad tiraahdo wuu ka weynaaday jabaddii dee fikirkaad samaynaysaa daciifa hadda waxaan kuu sheegayey waxaad leedahay so far ilaa hadda Faisal baan wax dhalinyaro haynaa baad leedahay taasaa qalad kala ah waxaan hadda kala ah yaan la inoo kala sheekeyn oo aynu meel wada soconno alaabtii jabadda la wada yahay walaalle Faisal khayr allah siiyo waan soo dadaalay waan soo halgamay waa nin dhammaystiran oo dhalinyaro waa nin booskan ay qabto jeclahay laakiin waa laga shaqo badan yahay waan oran karaa waa laga khibrad badan oran karaa adiguna waxaad leedahay aynu da waxaa lagu reebaad leedahay war da amaan la kala waaweynaynba haddaad aduu qaatay in la kala waawen yahay ma da baad u soo tirisay dadka okay mujaahid waa guulaysanaya haddii la yidhaahdo Faisalla waa guulaysanaya oo hadduu mujaahid guulaysto Faisal waa guulaystay hadduu Cumar Sooye guulaystay mujaahid waa guulaystay dhalinyarada innaga waa account-keeni weyn innaga waxay noo qabanayaan annagay na nasin doonaan maana ku tartamin weli waxaanse isleeyahay mid walba oo soo baxay wuxuu noqon doonaa mid tubtii loogu talagalay iyo qorshihii loogu talagalay qaada dhalinyarada Soomaaliyeed ee deegaanka degan isku soo xidha haddii ilaahay nafta inagu daayo waa dhalinyarada keliya ee exist ama jirta maanta ee caabis iyo resistance leh ee awood leh karaamo iyo sharaf iyo cizi leh weeyaan waxaan marka leeyahay okay waxaan marka leeyahay ilma adeerayaal dib isugu laabta wiilka inoo soo baxay waa wiil na nasiyey innaga shaqadaynu haynay wiil naga nasiyey weeyaan waan la shaqaynaynaa si buuxdaan ula shaqaynaynaa si karaamo leh baan ula shaqaynaynaa si buuxda oo dhammaystiran waan ula shaqaynaynaa
haddaan laakiin anu joogi lahaa halkaas wax laga dooranayo kollaba codkayga mujaahid baan siin lahaa anuu qaran maayo nin qariyamay waxyaaba fara badanoo ku doortayna waa jiraan insha allah waxaan rajeynaya inuu soo bixi doono inuu dhalinyarada maarata isu keeni doono haddii ilaha idhahdo taariikh ahaan iyo waxqabad ahaanba inuu dhinac marin doonaan rajeyn doona haddii ilaha dhalinyarada isu keeni doono insha allahu dhalinyarada kale tartamaysa walaalaheena ani weliba qaarkood aan waddanku wada nool lahay oo akhlaaq iyo edeb badan karaamo badan oo xushmad fara badan iga mudan shaqo badan aan soo wada qabanayna waxaan leeyahay iyaguna way guuleysanayaan mid innaga inaga mid hadduu guuleysto dhammaanteen waan guuleysanaynaa muhiimaddu waa inaan inagu la shaqayno cadow fara badan baan leenahay xisbigii faashidka ee tabarta darraa ee sakaraadkaa baa ina dhex jooga kuwii cabdi ilay ka burburay baa ina dhex jooga waxa weeyaan innagii soo mitidnay in maaragtay waxyaaba tashuusha laynagu dhex beero yeeli mayno runtii yeeli mayno nin waliba ka kale ayuu wax la soo cunay la soo shaqeeyey si xushmadii ku jirto hawlo la soo qabtay maantana nin waliba volunteer buu u socdaa nin shilin lacaga la siinaya ma jirto nin waliba tigidkiisa isaga iska bixiy nin waliba isaga maqaacidu gala ka cunteeya waxaan u malaynayaa maalmaha ay doorashadu socoto meelaha la degan yahay ayaan u malaynayaa in ironno in xataa iyagu iska bixinayaan dadka noocaasa weligeedba nooca kusoo halgamayay baan nahay haddaanu safar galla kuwa iyagu tegeerada iska bixinayay baan nahay mudaharaadka kuwa xataa boorarka ay soo qortaan iyagu lacagtooda ka bixinaya baanu nahay qaybta horaa ku soo dadaalay marka waxaan rajeynayaa iyadoo nabadoo maanta nabadgelyaha qalinkii inay dhinacan u wareejino dhallinyaradeenna tartamaysa inaan garab istaagno oo gacan qabano oo qof xubin firfircoon aan keensano waa muhiim waa la kala firfircoon yahay anu shaqada keliya loo kala firfircoon yahay yaan ku kala doortay inaan idhahdo hebel baan taageeray shaqada keliya ee loo kala firfircoon yahay keliyaan maaragtay aan anigu ku taageeraya qof laakiin waan ogahay saddexda ninba inay isugu ka yimid yihiin niman ixtiraam iyo xushmad iyo karaamal inay yihiin waan ogahay aad baan ogahay waxaan rajeynayaa inaan la isku keen dirin in xisbigan faashidkii naga dhex faa'iidaysan kuwii kale xisbigii cabdi la shaqaynayay labada dhinac unbay u kala jabeen waad arkaysaan mustafa maalin dhaweyd khudbaddii onolafta uu ka soo jeediyey wuxuu yidhi onolaftu nimanka soo dhexgalay calanka onolaf wan ha iskala hadlaan buu yidhi mujrimiinta ugu waaweynaan isaga u shaqeeya wasiiradiisay mujrimiin ku jiraan kuwa kamaramaanka waa mujrimiin ah kuwa fara badan oo mujrimiin oo aad u waaweyn baa ku jira gobolladay uga shaqeeyaan degmooyinka iyo tuulada uga shaqeeyaan kuwo dhiigyo cabo faraha weli dhiig kula jira marka runtii waxaan leeyahay aynu isu dhimrino haddaynu iswada eegno waan isla wada fool xumaanaynaa haddaynu isla wada fool xumaanana arrintu dhacba u kacaysaa marka insha allahu ninaba ka kale ha ogaada inuu hurran yahay waqti aynu kasoo wada cararay waddanka aynu kasoo wada baxsanay waxaynu isku aaminay wax walbo laysku aaminayna isku aaminay haddoo ay nabadi jirto hadday habuur ka cashayn karto qabdaar ka quraacan karto ka qadayn karto goday afdheer iyo hargeel aad u dhaafi kartood waxaad doonta soo samayn karto kusoo dhaanto tumanayso ama aanigi geel aad waxayn karto in maaragtay aynu isjahwareerina maaha saddexdaa dhalinyarada ee tartamaysa halganka wax fara badan u soo qabatay si fiican oo macquula ugu soo shaqaysay waynu kala taageeri karnaa waddamo waxaynu ka nimid casriya oo xisbiya ay ku maaragtay isku hardamaan sidaa unaynu u kala taageero intay socoto doorashaduna xifaaltan yar waa socon karaa laakiin in laysaga kala sheekeeyo oo qof baa saa yidhi iyo ku kalaa saa yidhi iyo maxay baa saa yidhi waa arrin aad looga xumaaday hadday dhacdo inay dhicina waan ogahay laakiin waan insha allah waan ka guuleysanayna insha allah waan laga guuleysanayaa bislaanshaheedana waan leenahay oo aad baan bislaanshaheeda u leenahay qofkii maaragtay dhib wadana de waynu arkaynaa saddexda wiil haba yaraatee nin noolka xataa laga bixi ma jiro wallahi nin noolka xataa laga bixi ma jiro rag baa reerahoodii ka tegey oo hadda
marsooyo kale muddo ku sugnaa meeshu ka shaqaynayay waxa uu shaqaynaya waa jabadii halganka waxa uu shaqaynaya habeen munadan isagu ilaahay meel muna u kicin habeen munadan isagu ilaahay meel muna u kicin Faisal waa markii labaad ku noqonayo waan ogeyn hawlihii gudaha waddanka gudihiisa ka soo qabtay waqti la isbiimayn karay nin buu isbiimeeyey oo dhalinyaro aan halka dirra ka mid ahaa shaqadu soo qabtay wayna ogeynaya meeluhu soo maray dhaliil male ciddii wax isaga ka gudbisay wax ka sheegtay qof kalena cidi u maqli mayso mujaahid sidoo kale waa markii labaad gudaha waa lagaga shaqo badnaa oo Faisal baa ugu waxa uu shaqo badnaa ninkii Cumar Sooyo intaa iyaguna meelaha kale ma laga kala shaqaynayay marka waxaan leeyahay dhalinyaradu ha ogaato inay yihiin kuwii shalay halgankii adkaa qadhaadhaa ee dhibka faraha badnaa ee ina rafaadiyey ee ina bahdilay ee nooc walba lainoo galay kuwii dhinacaya dhabarka saaray inay yihiin ha ogaadaan waxba ayaan la isku dirin waxaan xisbigan qashinka ee isdhex socda ee walaaqan yuunan jambal u tuurin dadka kuwa facebooka dhex degan baa jiro oo jambal dadka u tuura jambaladaas mar haddaynu nabad helle oo la nabdoobay oo ayaan la fiiqintu tago baashi kibista ay bideenadii uu soo cuni karo waxaa laga yaabaa markaas inay qolo u xaasidaysaa inay wax tirahdaan laga yaabaa marka isku dirka noocaas oo kale inagu may naqaano mana aynaa aqoon mana baran doono ilaahayna waan ka magan gallay aynu dadaallo codku waa mujaahid doorashada codku waa mujaahid haddii la yidhaahdo isagaa ururkiisu keeni doona isagaa sabata bixin doona haddii la yidhaahdo dhallinyaradeena kale isku daydayna ee taraygaraysay inay guddoonka ururka qabato way nala shaqayn doonaan waan la shaqayn doonaa mujaahid qorshe ahaan baan u qaadan doonaa inay maaragtay hawshaasi dhinac u fusho waradama gasheen marka nimaya waan idin salaamayaa dagaalla ma jiro xisbiga xataa laftiisa hadda waxaa fara badan oo dagaala kuma ohin la dagaalami mayno goor markay doorasho timaado iyanu la dagaalami doonaa hay alla maxaanu fiiqnin isku feeri doonaa waan ogahayba marka nimaya waan idin salaamayaa arrintaasna ka taxadara xaqiiq weeyaan arrintaa ka taxadara inay dhacdo laga yaabo isku dirkaasi aad bay u fara badan tahay sababtoo dhalinyaro is haysata oo isla shaqaysa oo macquul oo wanaagsan oo hal dhinaca u sii wada jeeda cidima rabto maanta zamankan maanta cidima rabto hadday laakiin aynu u jabno aynu waxyaabaha dhuxdhuxda ee lakala sheego ama lakala sheegi doono ama lakala sheegay aynu isu maqallo madmadow baa meesha soo galaya hadduu madmadow meesha soo galana shaqo xumaa soo galaysa shaqo xuma hadday soo gashana guuldarraa soo galaysa marka intaasiba si ayna u dhicin haddii ani hebel baa saa kulaha la yidhaahdo waxa ka macquulaan garanayaa qofka laga soo sheegayo waxa macquulka ka abaan garanayaa waa inaan ka taxadaro si taxadar loo wanaagsanaa sameeyo sababtoo anuu isu danayn mayo halgankii qadiyaddaan u danaynaynaa annagu waxaan isu danaynaynaa haba yaraatee ma jirto sababtoo shaksi iyo qadiyadda iyo halganka mar walba danta leh koobaad haddii la yidhaahdo hebel baa yaa saa ku lahaa waa in laga taxadaro insha allahu taxadarkaasaan yaan maaragtay insha allah ku aana dhamaynaa waana kusoo aana dhannay halgankan iyo qadiyaddan waxaanan usoo samaynin ma ay jirto meelaan u soo marin ma jirto waxa weeyaan waanu dhiman weyne tallaabo aanaan qaadin ma jirto tallaabo aanaan isku dayin ma jirto tallaabo qori dheh tu qalin dheh tu jaaliyad dheh tu owaasiyo dheh tu maskaxeed dheh tu wax aanaan isku dayin ma jirto waanu galgalannay oo waanu seexannay oo yaa waxaanaan samayn ma jirto marka insha allah waxaan leeyahay dhalinyarada oo waasiyo ka taxadarto qulquladaha ka iman kara doorashadan hadda soo socotay kala sheekaynta ka iman karta aad uga taxadarto aad hawa taxadarto waxaa laga yaabaa maadaama olole iyo doorasho ay timid in qofba qofka kale wax loo sheegaa laga yaabaa kolkaana qofka dee maaragtay aan bislayn inuu ku fogaadaa laga yaabaa si ayna taasi u dhicin haddaba ha lasii ogaado
markaad cadow leedahay adigu dhexdaaduna aad tartamaysa Maraykanka ku quus qaata. Bill Clinton iyo markay tartamayeen u fiirsada ninkii la odhan jiray Obama wax ayna cay u geysan ma jirto. Xisbiga Democrat bay ka tirsanaayeen. Cay walba iyo nidaam walba is-sheekayn walba kala sheekayn walba waa la isu geystay. Waana isku xisbi hadda ogow. Kolkii lasoo kala guulaystay xataa eedadii oo bilaa sharci ah Maraykan joogta la yidhi. Eedadii oo bilaa sharci ah yaa Maraykan joogta la yidhi. xataa waddanka kuma dhalan la yidhi. shahaadadiisii la soo saar. waxaan loo geysan ma jirto. Haddana madaxweyne markii dambe iska noqday. Marka waa xisbiga lagu dhex jiro gudihiisa waa la tartamaa laakiin laguma kala tago. Dhalinyaradu taxadarka faraha badan ha samayso. xisbiga kale kasoo horjeeda yaa soo dhexgali tashuush buu ku ridi ilaan dadku waa dadkii una hal waa wada ehelo hal meelay kasoo wada jeedaan hal meel waa loo tartamaya oo waddanka iyo dadka in la badbaadiyo unbaa loogu talagalay. Marka dhalinyaradan OIC-na waa madaxa boordiga ama mircaa boordiga soo socda ay noqon doonaan. Ragga ugu kartida ee karaamada badan bay noqon doonaan ee doorashada soo socota ee la isku hardami doono. Ragga hagi doona hogaamin doona weeyaan. Warmaan laga siinaya waa meesha ugu gudfil badnaan doonte. Waa meesha ugu gudfil badnaan doonte. Waa meesha ugu gudfil badnaan doonte. Waa laga siin kula. Shilaabo soo halka muna ka soo jeedin kan hadda ka ridnay bas ka soo jeedin halka. Marka arrinta laga taxadaro dib la isugu noqdo waxa weeyaan waa mutaxadar dhidhaa warfaa legend waa mutaxadar adeer inaan taxadaro baa muhiima. Shalay cadowgaan iska dugsanaynay maantana waa jiraa weliba inagoo aan qoryo wadanin baynu u tagno inuu ka dhex dagaalamaynaa. Marka waana jilicsan oo dhaqaalay wataan hanti bay haystaan inagu laakiin dad jilicsan baan nahay. Waxyaabo fara badan oo dhici karaa jira. Marka laga taxadaro adkaysigaan sameynay mid laaban oo 3 jibaaran ah sameyno waa muhiim. In qof kuu sheekeeya ama qof kale kaa sheekeeya in la maqlana waa arrin aad u adag weeyaan runtii. Mana dhici doonto aadna inaad uga taxadaro waa muhiim. Bislaanshaheedana waan leenahay. Aad baan idin salaamaya dhammaantiin. Asalaamu calaykum.